kulanti wacan daawadayaal innaga oo ay guud ahaan dadka Soomaaliyeed ay wada taabatay geerida Allah u naxariistay sareeyo guud Farxaan Maxamuud Aadan Farxaan Qaroole waxa ay la joogtaa Faadumo oo ka mid ah guriyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho isla markaasna ay si dhow u wada shaqeynayeen sanadihii soo dhaafay shaqooyin badan ay wada qabteen guriyo gaar ah oo si gaar ah arrintan iyo ciidamada uga soo warmayeen ahayd sida noo muuqata indhaheeda ilin ayaa saaran waxaan rabnaa inaan wax yar kaga ogaano Farxaan qarantiisii iyo waxa ay ka taqaano maadaama ay shaqo wadaag ahaayeen Faadumo soo dhawow cali waa maasan tahay inkastoo hadalka aan kari karin waana kaaga mahadcelinayaa waxaa maanta halkan aan u joogno waxay tahay aaska taliyaheenii hore marna walaalkay ahaa jeneraal Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole run ahaantii waxaan in badan daba socdayba maanta aaska Farxaan taagnaan doontaa ismareeyay laakiin qadartii Ilaahay ku imaatay alxamdulillah run ahaantii Farxaan markii la dhahayo dadka badi way ka wada dharagsan yihiin tani markii geeridiisa la shaaciyay social media ay taalay waxa uu ahaa shakhsiyadiisa nin dabeecadiisu ay furan tahay aadna ugu xil dheereeyay arrimaha ciidanka booliiska runtii wuxuu ahaa sidoo kale qof shaqo yaqaan ah oo aniga markii la fiiriyo ima ahayn taliyaha qaybta guud ee booliiska gobolka Banaadir kaliya wuxuu ahaa walaalkay qof garab ii ah miisaanna ii aha oo dadkan iiga duwanaa run ahaantii abnaan arkeenin qof asiga la mid ah marka Farxaan markii maanta la fiiriyo run ahaantii waa bal madow ayay noo tahay annaga oo qof muhiim ah iyo xubin muhiim ah ayaa naga baxday Farxaan waxa dhigi karaa maanta inaan qabrigiisa dul taagnaado oo asigoo la aasay arko waxay noqotay mid qadar Ilaahay ay noqotay waa qadartana wax loo joogo waayo adduunkan looga tagaayo bila sabab la'aan qof wax u dhimanayo ma jirto marka Farxaan waxa leeyahay Ilaahay naxariistiisa jannaha ka waraabiyo kutubkiisa gacanta midig Allah ka siiyo kuwa jannada ku wada kulman Allah naga dhigo qof wuxuu ahaa muhiim ah oo naga baxay laakiin maanta xaalad kale ay tan way Faadumo ma si hadli kara intaas ayaan doonaynaa inaan maaragtay ka warranteedii aynu ku gabagabayno anoo la dareemaya maaragtay culayska ay leedahay kula shaqeynaayo inuu geeriyoodo oo aad sida saaxiib u ahaydeen waxaan rabaa Faadumo dadkaan aqoon meesha lagu aasayo waxadeen waxaa lagu aasayaa xiro Madiina oo ah xiro gaar u ah ciidamada sida gaarka u tababarnay Haramcad kuna taala aaga isbitaal Madiina sida dadku u yaqaanaan ama wadada dheer aada xarunta barbaarinta carruurta ciidanka booliiska Soomaaliyeed jeneraal Algaab oo taliyaha ka yahay laakiin xiradan xiro si gaar ah ay u leeyihiin waa ciidamada sida gaarka u tababaran Haramcad oo taliyo ahaa jeneraal Farxaan Maxamuud Aadan Allah u naxariisto amiin Allah u naxariisto adigana waan kula dareemaynaa xanuunka dhammaanteen dhammaan dadka Farxaan Qaroole sareeyo guud thank you